iyadoo guud ahaanba dalkani Jamhuuriyadda Soomaaliland looga fariisan doono imtixaanka shahaadiga ee fasalada 8 iyo fasalada 4 ayaa maanta gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal oo warfidiyeenada kula hadlay xafiiskiisa Xuseen Sadiiq Faarax waxa uu fariimo kala duwan u diray ardayda ku dhaqan gobolkani Awdal isagoo gudoomiyuhu hoosta ka xariiqay inay u diyaar garoobaan imtixaanka shahaadiga ee fasalada 8 iyo fasalada 4 gudoomiyuhu arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri maanta oo ay sabtiya waxaan xaggan fariin uga dirayaa dhammaan ardayda u diyaar garoobisa imtixaankii shahaadiga ahaa fasalka 4 ee form 4ka iyo fasalada 8ka sabtideeda waxaan insha Allah u wada sugaynaa inuu noo bilaamo sida aan la ka rajaynayno imtixaankii shahaadiga ahaa marka halkan waxaan fariin uga dirayaa maanta dhammaan ardaydu inay diyaar garow ay sameeyeen ku sii jireen ay diyaar garoobaan maskaxdooda dejiyaan inta badanna ardayda waxyaabaha aadka caqabada waa inay warwar fara badan qabaan arday haddii aad dadaashay waxa lagu keenayaa waa intii aad dhigatay wax ka saa'ida la keeni maayo laakiin number 1 waxa ka aan kalsoonida iyo saad uga shaqeyso ardaydu inta badan kalsoonida ayaa ka dhimatay oo wuxuu soo diyaar garoobay qish arday walba oo imika qish diyaarsaday waxa uu cadeelay maskaxdiisii sababtoo ah intii uu garanayay waxa uu ku mashquulaya in uu sameeyo sida uu xoqish lahaa marka taa waxa ka haboon inuu ardaygu isagoo degan oo maskaxaan degan inuu soo fadhiisto kadib uu soo diyaar garoobo wuxuu garto oo ka shaqeeyo arday ka soo sameeyo waxaan filaynaa in uu noqon doono arday ku guuleysta arday waxaan aad halkan inta badanna ardayda imtixaanka markay galayaan ugu daran waa iyaga oo aan fahansanayn su'aasha arday marka lagu soo dhigo su'aasha si fiican iskaga eeg su'aasha markaad fahantid jawaabta bixi laakiin adigoon su'aashiiba fahmin ha ka jawaabin taa waxa ka sii daran in aanu instruction-kii imtixaanka aanu akhriin waxa imtixaanaadku ugu tala galeen 10 minute in uu ardaygu ka baaraandago oo aan ku jirin 2 saacadood 10 daqiiqo iska akhri markaad imtixaankii akhridid intii laga doonayay haddii lagu leeyahay inta ka jawaab instruction-kii si fiican markaad u fahantid 10 daqiiqo waxaad iska hubisaay oo kale page-ka xaq ku yaala xagga hore ee lagu yiri intaas buu yahay intaan imtixaanka bilaabin inta markaas la aragtid ee ay ku dhameystirmaan imtixaanka gudagal intaad ka garatid ka shaqee inta kalena aad oo degan wad xasan doontaa marka arday waxa leenahay kalsoonidu waa ta ugu muhiimsan ee ardaygu imtixaan ku galo muhiimadana waxay tahay in uu ardaygu wuxuu garanayo ka shaqeeyo marka arday waxa leenahay istajiya imtixaanku waa imtixaan insha Allah awada garanaysin ku guuleysanaysin ma noqonaya laakiin waxa ku xirnaan doontaa sidaad adiga oo kalsooni qaba aad uga timaado qishkuna waxyaabaha inta badan ardayga failure-ka ku keena marka labada qodob ugu muhiimsan ardaygu inuu istajiyo instruction-keena si fiican u raaco qishkana uu ka dheeraado geestinta waalid adiga ilmaha ka masuula maanta hadii aad ku qaban qaabisid inuu qish sameeyo waxa la waxa tartay ma jireen waxaad ka shaqeynaysaa sidoo uu dhici lahaa ama uu guul dareysan lahaa maanta markuu intii uu akhrisan lahaa 4 cisho 5 cisho oo akhrisan lahaa wuxuu ku dadaalayaa in uu soo qorto wuxuu ku qish lahaa taa macnaheedu waxay tahay ardayga haddii aad ku dhiiri gelisid inuu wax akhristo intuu qishka ku sameyn lahaa maskaxdiisa ayuu ku qaadanayaa marka waxaan leeyahay imtixaanku insha Allah imtixaan lagu guuleysto noqon doonaa imtixaan aan ku wada najaxno gobolkeena noqon doonaa marka ardayda gobolka Awdal waxaan leeyahay arday waa inaad si fiican u dadaashiin maamul iyo macallimiin iyo gudoon weyn la dadaalaya waxaan ni rajaynaa insha Allah inuu noqdo imtixaankan imtixaan idinka farxiya waxaan leenahay gulbay ni rajaynaa inta ka horeysana niyadda sii dejiya inaad guuleysanaysiin oo gulka keenaysiin insha Allah qalbigiina galiya Cabdikariim Ciise Cabdullaahi Cabdikariim